السلام عليكم أصحابتي قالقة مركا لي كسو dhawaada saacadii cunto karis asxaabta maanta waxaan sameyn doonaa chicken kan aan saan u shiilay foornada ugu dubay marka waxaa rajeynaa inaad ka faa'iideen sameyskiisa marka weelkaas waxaa ugu jiro hal xabo oo digaag ah soo jarjartay midda shafka ah waxaa loo baahan yahay digaag inay midda laf la'aanta ay ahaato nooc kasta ku ahaato laakiin laf inay ku jirin aan sidaas u soo yaryareysid marka kadib waxaa kusoo shubaa yogurt kusoo shubaa laba qaado yogurt markaa kusoo shubay wuxuu ku xiran tahay chicken inta sameysanaysid aniga hadeertaan maadaama oo aan sameynayo hal xabo wax badan kusoo shubin kadib saliid oo saytuunka ayaa kusoo shubtay kadib waxaa kusoo shuba doonaa hal qaado yaris oo barbarooniga oo shiidan oo gaduudka ah paprika kusoo shubatay oo macnaha hal qaado yaris ah kadib waxaa kusoo shubanaa qarfaha shiidan wax yar ayaa u baahan tahay wax badan ma u baahnid asiga macnaha hal qaadada yarista afkeeda hore bas isticmaalaysid hal qaado buuxda ma isticmaalaysid kadibna waxaa kusoo shubanaynaa filfishan sidoo kale qiyaastaada ku xiran tahay filfishan markaa sidaas ugu soo shubto waxaa kusoo shubanaa kadib sanjabiilka oo shiidan asigana sidoo kale qaandada yarista afkeeda hore ayaa kusoo shubanaysaa kadibna waxaa kusoo shubanaysaa xawaaji dhudhuubka oo oo shiidan asigana kusoo shubanaysaa hal qaado asigana kadib markaa kaas kusoo shubatid waxaa kusoo shuban doontaa oregano asigana sidoo kale hal qaado oo yaris ay u baahan tahay intaas markaa sidaas uu soo shubay toonta midda qaleelkan waa isticmaali kartaa midda qoyan waa isticmaali kartaa marka hadeertaan midda caadiga fresh taa isticmaalaa 3 xabo marka saddexda xabo toon kusoo shubtay waxaa kusoo shubanaa cusbada dhadhankaaga ayaa ku xirantahay aniga hadeertaan inta gacanta ayaa ku qiyaastay laakiin haddaa qaando ku qiyaasanaysid qaandada yarista oo buuxda u baahan tahay insha Allah kadibna waxaa isticmaalaysaa yaan shishiidan sidoo kale hal qaado midda oo cuntada lagu cuno camal hal qaado ayaa ku shubanaysaa kadibna jab liin hadii digaagaaga intaan ka badan tahay hal xabo liinta halka xabo dhan oo isticmaali kartaa laakiin aniga maadaama hadeertaan hal xabo oo digaag aad dubi rabo jab liin la isticmaala marka liinta waxaa sidaas u sameeyay si biyo biyo fiican ee u dhasho marka hadeertaan liinta way adkeeda marka laakiin xoogaa meesha sidaas ku sameeyay biyo badan ayaa dhashay masha Allah marka jabkaas la isticmaal doona aniga jabka liin dhanaa markaa sidaas ugu soo shubay wixii dhan hadeertaan waa iskuulo macna wax ma u dhino sidaas si fiican aad iskuula qasaysaa marka si fiican iskuula qastid xawaashiyaasha iyo kulli yogurtiga iyo liin dhanaa si fiican markaa iskuula qastid meel ayaa dhigan doontaa insha Allah dabool saaranaysaa meel ayaa dhiganaysaa ilaa 2 saacadood ilaa 3 saacadood habeenkii xitaa sameysan kartid way fiican tahay oo macnaas waxdii aad dubanaysid masaduurka aad dubanaysid laakiin hadaa maalintii ay kugu soo dhacdo inaad sameysatid waxaa sameynaysaa 2 saacadood 3 saacadood ilaa 2 saacadood ka hor ayaa meel isku qasqasane kadibna meel ayaa iska dhigaysaa waxaa la rabaa inay xawaashka wax dhan digaaga oo dhaxda ka gala hadhowti markii aad dubtid soo macaan oo kugu noqdo hadhow markaa qastay isla markaa aad dubtid dhadhan fiican ku yeelanayo marka sidaas darteeda markasto markaa qastid 2 saacadood ilaa 3 saacadood meel iska dhig insha Allah هذا لو ساعات عمل يا صو ما ركتمل صو ديجنا إن شاء الله كده بيا سكسون نقدونا أصحابتي دقاليقة أصحابتي إذا هدرتان لبس ساعات أياميل إيطالي إن دقيقة marka qoryahaas ayaa soo qaadanaysaa aniga hadeertan foornada ayaa ku duubi rabaa marka hada foorna haysanin ama foornada rabay inaad ku dubtid waxaa sameyn kartaa xataa dabka kore qaybta kore ku dubi kartaa ama grill aad sameyn kartaa macnaha
dhuxush xitaa waa ku duban kartaa, qasab maaha inaa foorno ku dubtid. qoryahaas usoo gelgelinayna kadibna insha Allah foornada ayaa gali doonaa. foornada way iisii kulaanaysaa, marka foornada kuleel ayaa gelinaysaa insha Allah. waxaana kasoo bixinaysaa markay maaragtay ku gududato. aniga hadeertaan waqti muu qabanin, waa fiiriyay, waa la socday intay gududanaysay, waa gidgidinayay. marka hadaa rabtid waqti u qabsan kartaa tartiibtaada, laakiin waxaa la rabaa digaaga inay si fiican u bislaato ayadoonan bislaanin maaragtay, maadaama oo maaragtay foornada le aa ku dubayno xoogaa inaa waqti fiican siisid si fiican u gududato, dabkana maaragtay u yaray insha Allah. saas ayaa usoo gelgelinaa qoryaha. marka aniga hadeertaan 3 qoryo camal ay naqatay, maadaama hal xabo digaag aa sameynaaye wax badan may naqanin. hadaa rabtiin asxaabta qudaar xitaa dhexda waa gashan kartiin, basal iyo maaragtay barbarooni iyo waxaas inta soo jarjarteen xitaa dhexda waa ka gelgelin kartiin. aniga hadeertaan sidaan ayaa u sameysanaa. marka asxaabtayda qaaliga waxaa rajeynaa inay ka faa'iideen maaragtay chickenkan sida u sameynayo. hadeertaan waa kana xabadii saddexaad ayaa sameyn rabaa. marka inta 3 xabo 3 qore ayaa ii naqatay, saaidna muu buuxinayso u jeediin. intii maaragtay hal qof oo cuni karta camaleed ayaa gelgelina. marka chickenkan wax walba ku cuni kartaa, rooti ayaa dhexda ka gashan kartaa markaa kasoo baxsid, marka ku diyaar noqdo rooti micnaha ayaa dhexda gashan kartaa. hadaa rabtid bariiska ku cuni kartaa, waxaa rabtid oo maaragtay hadaa rabtid qudaar ku cuni kartaa, micnaha ansalaati waxaas inta jarjartid maaragtay ku cuni kartaa. marka sidaas ayaa foornada u geliyay, kadibna weelkaas hoos kasii dhigay. hadhowti marka foornada maaragtay marka digaaga ay dumayso camal biyo iyo wax ka dadaato seenan maaragtay foornada kaaga haleenin, weel hoosta uga dhig insha Allah. waa kana hadeertaan xoogaa iigu jirtay, waa ii gududatay qaybta kore, kadibna waa gidgidiyay. waa ujeedin dhacaanka qaybta hoose yaalo, hadhow hadaa wax u dhigin sidaas ay foornada kaaga haleenaysaa. marka insha Allah hadeertaan waa kana waa kasoo bixiyay asxaabtayda qaaliga. maasha Allah quruxdaas ayaa naqatay, way gududatay. waxaa sameynaa subag yar ayaa korka marmarina, subag qurux ayuu si yeelaa oo si dhaldhalaal ayuu naqanaa. marka asxaabtayda qaaliga waa kana waa ii diyaar. waxaa rajeynaa inaa ka faa'iideen chickenkan saa u sameeyay. asxaabtayda hadaa channelka ku cusub tihiin like subscribe-ka ha iga hilmaamin insha Allah inaa gambaleelka daaratiin soo idinkugu soo dhaco video walba aan soo geliyo, inaa maaragtay asxaabtiina la share gareysiin sida ayagana ugu faa'iidaan insha Allah. asxaabtayda qaaliga waxaa soo arkeen doonaa videoga xiga. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.